nabi saalix qoomkiisii waxaa ka mid ah rajulun yu'diihim dadka dhibo nin dadka un dhibo oo macnii duurkaa ku jira oo kolba qof un dhibo ayaa ka mid ahaa dad lays ah faqaaluu waxay yidhahdeen yaa nabiy allah udcu llaha tacaala ninkaan bal naga habaar wey waana dhibay dadkii uuna ka dhigay aye naga habaar faqaala wuxuu yidhi nabigii waa nabi saalix idhabuu taga faqad kufiitumu waa laydinka kaafiye kaase bas mar damba idin dhibi mahaye ilaahay baa idinka kaafiye taga wa kaana wuxuu aha yakhruju kula yawmin yaxtadibu maalin la arkay uu iska bixi jiray qoryo duurkaa ka soo guran jiray qoryihiisaasuu iibsan jiray nin weyni badan oo xoog badan waaye wax qaban kara ma jiro dadkana waxbuu dhibaatuu gaarsiinaya fakharaja fi hada alyawm maalinka ayada nabi saalex loo yimid ee la habaaray ninkii ayuu iska baxay wa macahu raqiifaani laba xaboo kibisa ayuu horay usii qaatay faakala axadahumaa mid wuu cunay watasadaqa bilaakhari midka kalena qof maskiin hoosiiye ku sadaqaystay waxtadaba qoryihiisii uu iska soo gurtay uma jaa'a bixadabihi saaliman asagoo qoryihiisii tunka ku watoo nabad qabo yuu galabtiis ka yimid falam yusiibuhu aya shay wax ku dhacayba male nabigii baa loo yimi nabigi ilaahay oo ninka waa kaasoo balaayo qabin buu iska soo galbaday waa socdaa ninkii fadacaahu saalix baa u yeeray nabi saalix calayhi salaam waqaala lahu wuxuu u yidhi ayu shayin baad sanacta alyawma maanta maxaa samaysay qaala wuxuu yidhi kharajtu waan baxay wa macii raqiifaani laba xaboo kibis ahaan watay wa fatasadaqtu biaxadihimaa mid waan sadaqaystay wa akaltu laakhara midka kalena waan cun faqaala saalix nabi saalix wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xalli xadabaka bal qoryaha fur faxallahu qoryihii buu furay faidaa fiihi aswad mas weyn baa qoryihii ku dhex jira asagu show qori ahaan buuba usoo qaatay waa mas weyn oo dogob la-eg yaa qoryihii dhex jeefo mithlu ljadci baad moodi dogob buu leegyahay caadin wuxuu qaniinsan yahay calaa jidrin oo yani calaa judrin buu qaniinsan yahay oo min xadabin qoryihii waa weynaa dogobyihii uu watay tunka ku watay mid ka mid a ayuu ku dhegan yahay maskii faqaala wuxuu yihi nabi saalix bihaadaa dufica canka bihaadaa midkan maskaanoo ku cuni lahaa yaa dufica canka sadaqada lagaaga reebay waad dhiman lahayd baalkan baa ku cuni lahaa maanta laakiin sadaqadaasaad ku badbaadi marka haddii sadaqadu yani wixii makruuha iyo dhibaato o dhan bay kaa furanaysaa haddaad ku dadaasho waayo sadaqada